asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka kan isaga ah oo aan ku falanqeynayno arrinka ku magacaaban xeerka jinsiga. xeerka jinsiga aad moodid waayihii dambe inuu hadda ka askumay hadalhayntiisu dalka Soomaaliya, gaar ahaan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, kuna saabsan macnihii laga wado jinsiga nooca oo yahay arrinkaa noocu arrin ka duwan arrinkii aynu hore u naqiin oo ah dhadiga iyo laboodka, balse laga wado jinsiga guud ahaan arrin xambaarsan arrimo ay ka mid yihiin dhadiga iyo laboodka iyo isla mar ahaanta halka jinsi hadduu noqdo dhadig ama hadduu noqdoba labood. guud ahaan arrinkaasu waa arrin dibadda nooga yimi. aad moodid hay-ada ka mida qaramada midoobeen oo ku lug leh ay arrinkaas macnihii qaadaqaadayeen muddo dheer oo laga soo bilaabo dabiiqadii qarnigii 20aad, gaar ahaan 70-yadiisii lasoo gaadho 90-yadiisii ilaa iyo maanta, iyadoo ay ku xusan yihiin sooyaalka aadmiga, gaar ahaan qarnigii 20aad 2 shir weyne oo waaweyn oo run ahaantii qaadaadhigayay arrimo ku lug leh bulshada oo ka dhacay dalalka China caasimadiisa Beijing iyo dalka Masar caasimadiisa Qaahira. innaga sharcigaas jinsiga ee waayahan dambe ama sanadahan dambe laga wadwado dalka Soomaaliya waa mid macnihii ku yimi xubannimadaasaan ku leenahay bahweynta caalamka oo aynu nahay dowlad ama qaran ka tirsan qaramada midoobay. sidaan ogsoonnahayna dalalka ka mida qaramada midoobe ama hay-adda qaramada midoobe waxaa ka dhaxeeya axdi ama charter midaynaya sharciyadooda. macnihii Soomaaliya ay kaga mid noqonaysaa dal la mida dalalkaas iyaga ah oo u hoggaansan sharciyadaas iyada ah. isla mar ahaantaas dal kastana uu xaq u leeyahay, Soomaaliyana ay ka mid tahay, inuu sharciyadaas qaarkood ee ka soo jeeda qaramada midoobeed iyo hay-adaha la saanqaada wuxuu doonana ka qaato, wuxuu doonana diido. arrinkaasuna uu yahay arrin saameeya saan farta ku goday dalal badan oo inala mida aanu Soomaaliya balse ku ekeen, oo iyagu laftoodu aragti ka qaba tusaale arrinkaas jinsiga ama xeerar kale oo la halmaala. isla mar ahaantaasna qaramada midoobay ee xaq u siinayso inay dalalku sharciyadaas iyaga ah wixii aan danahooda la saanqaadeen inay diidma ka muujin karaan, oo arrinku aanu taagneyn wax laysku khasbo, balse ee tahay in dal walba loo soo bandhigo, uu ka doodo, kadibna uu ka soo saaro sharciya la saanqaadaya sharciyadaas iyaga ah ee ka soo jeeda qaramada midoobeed oo xeerka jinsiguna uu ka mid yahay. mar haddii arrinku ama xaajadu daawaday halkaasi marayso ama ay taagan tahay, su-aashu waxay tahay maxaa ku dhiban, maxaa ku jaban in
dalka Soomaaliya sharciyadaas iyada ah mar haddii loo soo gudbiyey oo loo soo mariyey dhanka xukuumaddii iyo hay-adihii ku takhasusay in laga doodo in laga faalloodo uu arrinkaasuna saan tilmaamay yahay arrin dalalka kaleba ka dhacay oo saas arrinkaas isaga ah barlamaanadooda looga dooday ilaa heer ay jirto in dalka Tunisia daawade barlamaankiisu golahiisa shacabku uu ka dooday arrinka ah cayda ama ku xadgudubka ilaahay oo sharci noocaas oo kale ah lagaga dooday isla mar ahaantaas uu hor istaagay sharcigaas isaga xubin ka mid ah barlamaanka Tunis oo ka dhiidhiyey arrinkaas isaga ah mowqifkiisaasna iyo tallaabadaasuna ay door weyn ka ciyaartay in sharcigii isaga ahaa uu barlamaanku joojiyo balse innaga marka loo fiirsado haddaynu Soomaali nahay sida hadda waayahan dambe ama maalmahan dambe ka muuqata baraha bulshada la isu marinayo arrin aan run ahaantii ku habbooneen in lagu falanqeeyo baraha bulshada ee ku habbooneed marka ugu horreysa in xogtiisa la helo oo lagu falanqeeyo golaha barlamaanka ee Soomaaliya isla mar ahaantaasna ay dhacday in hore loogu falanqeeyey arrinkaas isaga ah balse aad moodid in sidii habbooneed aan loogu falanqayn oo xitaa xubnaha barlamaanka ama golaha shacabka ka tirsan ee arrinkaas isaga ah ka dooday ama aftida ka dhiibay ay ahaayeen dadyow ma ogayaal ah oo aan si fiican loogu qeexin arrinkii isaga ahaa ee laga doodayey balse lagu awrkacsaday oo loo muujiyey in ujeeddo xun laga leeyahay sharciga kan oo la marsiiyey aragti gaar ah oo u ololeynaysa in sharciga kan duuduub guud ahaan loo duuduubo oo saas lagu tuuro iyadoo aan laga doodin sidii fiicneed inkastoo guddi loo sameeyey arrinkaas isaga ah isla mar ahaantaana ee dhacday in samcaddii laga dilay wasiirad ka mida oo sharcigaas ku lahayd maadaama ay tahay wasiirad deeqo wasiirkii hore ee dadweynaha xidhiidhiyaha dee u dhaxeeya Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed iyo caalamka xidhiidhiye markaad tahayna oo laguu soo dhiibo arrin waxaad ku khasban tahay inaad bulshadaadii iyo hay-adihii ku lug lahaa inaad u soo gudbisid isla mar ahaantana uu doorkaagii halkaas ku eg yahay iyo wixii la halmaala balse aanu ahayn arrinkaas isaga ama xeerkaas jinsiga ah ee nooca ah lagu tilmaamo arrin u gaara wasiirad deeqa ama hadda aanu u ahayn arrin u gaara wasiirad Khadiija Diiriye iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka barlamaanka Sacdiyo Daahir Xaaji Samatar balse uu yahay arrin qaran oo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo dhan khuseeya sidoo kale waxaad moodaa in looga faa'iiday sharcigaas isaga ah xurgufo iyo xarash u dhaxeeyey madaxdaas iyaga ay xusan iyo qaar ka mida wadaadada Soomaaliyeed iyo xitaa arrinkaas isaga uu saameynayo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal
ayna ku habboon tahay marka arrinkaas isaga ah laga faalloonayo oo bulshada loo soo bandhigayo, hadday noqoto golaha baarlamaanka gudihiisa ha ka dhacday ama qaab miidiya ahaan ha loo soo gudbiye, ay tahay inaad cuskatid oo xustid faqraddii ama hadalkii ama qaabkii uu qornaa markaad qof u nisbaynaysid hadalkaas, gaar ahaan wixii ku lug leh guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka marwo sacdiya daahir xaaji samatar ama khadiijo diiriye ama wasiiraddii hore marwo deeqa, balse aanu arrinku qaabkaas u dhicin oo la saaray run ahaantii waxyaabooyin aan lagu caddayn karin, ma garatay, iyo iyadoo aan la soo bandhigin qaabkii uu arrinku u dhacay. markaas ay tahay run ahaantii muuqaalkaas isaga ah muuqaal dagaal ah, personal attacka, oo saan tilmaamay ay yihiin dadkaas iyaga ee bartilmaamsanaya haweenkaas iyaga ah dad macnihii ujeedo xarash iyo guud ahaanba ka soo horjeeda kaalinta haweenka Soomaaliyeed. run ahaantii qaabka loola dhaqmay ama looga faalloodayna uu yahay qaab aad u hooseeya oo suuqiya oo saaqidnimo aanay ka marnayn. oraahda la isticmaalayona iyo sida qaabka dadka loogu kicinayo iyo loogu ololeynayo iyo aayaadka Ilaahay loo adeegsanayo meelo iyo goobo aan khuseyn na laga dhadhansan karo arrinkaas isaga ah. aanna leeyahay waa laga fiican yahay, waxayna ku habboon tahay inay shakhsiyaadkaas iyaga ah ee ugu horeeyaan wadaadadu ay horkacayaan qaarkood inay ka waantoobaan. run ahaantiina gunaanadkana la gaari doono xogtaas iyada iyo tafatirkeedii iyo sida waxay u dhaceen, ayna noqon doonto gunaanadkii arrin la iskaga daba yimaado, muuqaalkooduna uu kashifmo oo bulshada Soomaaliyeed ogaato gunaanadkii sida wax u dhaceen iyo sida wax u qornaayeen iyo sida soo jeedintu ahayd iyo soo jeedimahaasu cidday ka soo jeedeen. arrimaha daawade dhegayste ku saabsan arrinkaas isaga xeer jinsiga, run ahaantii markaan anigu u fiirsado ama ka hadlo aragtidayda waxaan oran karaa waa arrimo aad u qoto dheer oo u baahan barnaamijyo badan in lagaga faalloodo, oo insha allah aan jecelahay wixii soo socda markaan fursad u helo inaan kaga faalloodo, maadaama uu xeerkaas isaga ah arrimo badan oo dhaqan ay ku lug leeyihiin. balse aan leeyahay gunaanadkii waa lama huraan in laga faalloodo because waa arrimo khuseeya danaha Soomaaliyeed iyo sharciyada maxaa bulshada ku saabsan iyo xeerka qoyska iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. daawade dhegayste waa anigoo ah Khaalid Xasan Yuusuf, ilaa intaan ku kulmi doono barnaamij kale oo kan la mid ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.